maanta waa 14 bisha February waa maalinka jacaylka sida dad badan u yaqaanaan Valentine Day balan ka hadla jacayl waa maxay jacayl waa su'aal in badan dadku isweydiiyaan haddana micno hal loo leeyahay oo laga siman yahay bal aan 2 daqiiqo ku soo koobo aniguna waxaan ka aaminsanahay tusaale ahaan qof baa wuxuu ku oranayaa waxaan jeclahay digaaga ama kalluunka xaqiiqadu waxay tahay ma jeclo digaaga ama kalluunka ee wuxuu jecel yahay nafsadiisana waxay ku qanci kartaa waxa weeye inuu kalluun cuno ama chicken cuno sidaas la mid gabadhu ama wiilku markuu ku oranayo waa ku jeclahay waxay ka micno tahay nafteedaan jeclahay nafteedana waxay ku qancaysaa oo ku farxaysaa inaan adiga waqtiga ka dhumiyo kugu ciyaaro ku xanuujiyo mustaqbalkana ka dhumiyo jacaylku ma ahan 14 February walbaba inaad wiil cusub ama gabadh cusub la dabaaldegayso jacaylku ma aha in aan waqtiga aan ka dhumiyo adiguna iga dhumiso jacaylku ma aha markaan cidloodo inaan dhaho waxaan magaalada ku xaragoodo oo la socdo ayaan rabaa jacaylku ma aha hebel ama heblaaya xiriir leh anna aan samaysto jacaylku waa wax ka farxinaya wax ka oysiinaya ma aha waa wax ku siinaya ee wax ka qaadanaya ma aha يعني single bad hay dhibaato maada maraynin ma fahantin laakiin maalinka relationship yeelato inuu buuq kugu bilowdo xagga nolosha kaasi jacayl ma aha jacaylku waa in la is-ixtiraamo la isfahmo labada dhinacba wax garab la ahaado sanado badan la wada socon karo guur loo sii gudbin karo laakiin sanad walbo cusub relationship cusub kaasi jacayl ma aha waqti dhumis ayaan u aqaanaya in la wareersan yahay